haddii aad ku xiran tahay oo aad daawato warbaahinada galbeedka sida BBC, Fox News, CNN, Daily Mail iyo dhammaan warbaahinada galbeedka yaysan ku marin habaabin oo ha ku dhicin dabinkooda. haddaba warbaahinadan qaabka ay wax u soo gudbiyaan waa fikrad ama ideology laga gadayo. tusaale, dagaalka hadda ka socda Falastiin iyo Israa'iil, eray bixinta ay u isticmaalaan ma ahan eray bixin ku habboon. meel dheer maba aadayno, meel yar ayaan wax kaa tusayaa. waxaa hadda Israa'iil iyo Falastiin ka socdo maxaabiis labada dhinac ay kala wareejisanayaan, laakiin qaabkee ayay u tabinayaan warbaahinta galbeedka. markaan adeegsanay ereyga hostages af Soomaali ahaan waa la haystay. Falastiiniyiintu waxay haystaan oo ay soo qafaasheen ilaa 200 oo Israa'iiliyiin ah. haddaba la haystayaashaas Israa'iiliyiinta waxaa loogu yeerayaa hostages, halka dhinaca kale Falastiiniyiinta ee Israa'iil haysatana loogu yeerayo dad maxaabiis ah ama qof dembi inta soo galay la xukumay oo xabsi la geliyay. haddaba warbaahinta galbeedka Falastiiniyiinta waliba hooyooyinka iyo ciyaalka ah oo ka soo baxay xabsiyada Israa'iil waxay u adeegsanayeen dad maxaabiis